ما ينوي دين عن شيء وما ينوي دين إلا هدي ويديان أخبرهم به وشاقيه وزادهم مثله انتهين لأجنا ووسي بير ليه marka waxa rayba male culumti bariga la yaqeenay wixii macrifada bariga la yaqeenay oo dhan wuxuu ahaa ninkaas wax walba qoobay sidaas waxa loo yiri waa habrul umma ummadda caalimkeedii qala rawi al-khabari warka ninkii wariyay wuxuu yiri falaw anna quraishan hadii quraish kullaha dhamaanteed fakharat bidalika arinta ay ku faani lahayd لكان وحو أهان لها ذلك كاتلها فقرا فهمي هي مقع إساق أقول لها لها marka hadda faanki iyo walogtii inuu hada micnada lahayn islaamka in la faani iyo inuu san qiimo lahayn laakiin wuxuu ishaarayaa di maartay ilaahay uu ka dhaliyo qof sharaf leh inuu yahay inay wanaagsan tahay oo hadda haddaan Soomaalinahay duulaahay naga dhaliyo nin caalim oo magac leh oo ومرتاح وحين نطع شرف سام بكولا وكأن ابن عباس واحد مدائن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رأوا أركي مركي دنبه أن يوزع إنه أكل قيبيو العلوم علوم تكل الدول على الأيام ما المها إنه أكل قيبيو حتى لا يحدث فيه تنبع على بابها الباب كيسا مثل ذلك الزحام يجي قاس يبوق عطوك لسوس المرضى بوغدعن لأن تذكى علوم تأكل الدوان ربايات بيقول بدينين هل مالنا لغم في الله مكا مالمي فوق لقيبيه مالي وحيد الفقه قاعد سلك مالي وحيد سلك حديثك مالي وحيد سلك تاريخ له مالي عربي ده اسكاله مالي وصعد فوق لقيبيه فصار وحوها عبد الله بن عباس يجلس كيف فريسة في الأسبوع تضبط يوما مال أيوب فريسة جري مال تأتو لا يذكر فيه أن لسوب قارين إلا تفسير معاني أن وحكا الله لسوب قارين يجري مال بالله تلقى لتفسيرك مركو مال في تفسيرك وحسده مركو فيه علمك مركا حسابها لقيبنا يو حسة الفقه حسة الرياضيات كحسابها جامعات هذا سلايين وكا عبد الله بن عباس بالعريبة لن باعيهم باتمت مركا وحولي ما أنت ومعلم في تفسيرك وحسة تفسيرك ويوما معلم لو سمايه لا يذكر فيه أن لحسين أو لما قعابين أو لسوق هذين إلا الفقه فقه معه ويوما مالنا لا تذكر لما حصيه ولما سوقعه فيه إلا المغازي دول مادية رسولك معنا وسيرنا ويوما مالنا لا يذكر فيه لما حصيه إلا الشعر قبي هي اللغة العربية معنا ويوما مالنا لا تذكر فيه لما حصيه ولما شيغيه إلا أيام العربي معلمه عربك وتاريخ العرب وما جلس مفريسا ابن عباس لما فريسا ما جلس إليه لما فريسا إليه سدع عالم من علم قط ولي إلا أطول فريسه خضع له عالم كاسي ابن عباس هو كان سمي جري وأرك جريين ابن عباس كعلم بلني هاي وما سأله مور سنين أما موي دين سائل مدوح ورسنا أما وحوي دياي قط ولي إلا عدو ويديه وجد كاوح ويديه وحو كيلي جري عنده ابن عباس تيسا علم بكيلي جري marka wuxuu ahaa fad aan guraynin oo talkeeda la gaaraynin oo ma aqaani iyo aan laga helayna wax walba si sax ah uga jawaabaya mana ahayn kuwa iska jawaaba sideena oo kale hadda qaar baa iyaga waxba aqoonin yaa wuxuu ka xishoonayaa ma garanayo waa musiibo weyn ma garanayo ayay waa hebel waa sheekh baa lagu yiri marka dii la yiraahdo inta su'aal lagu weydiiyo ama waan soo fiirinayaa ama balbariye ma waan soo baari in lagu yiraahdo waxaan waxba garanaynin muxuu yahay marka iska jawaabo iska too waana mid ugu khatarsan weeyo waxaadan ogeyn oodan hubin marka sidaa waan iska jawaabi marka oo kale haway noqonayo marka de hawadi waxaad u tiirinaysaa ilaahay diintiisa ilaahay baad u tiirin taasna waxay noqonaysaa waa iftiraa'un cala allah
inaad alla ku been abuurto wuxuusan ilaahay odhan aad sidaa u yidhi ileen markii masale lagu weydiinayo masalada waxaa laga rabaa xukmullahi fi hadihi lmas'ala masaladan ilaahay xukunkiisu muxuu ka yahay ileen dadku waxay ku moodayaan inaad cilmi baa lagu soo mooday marka wixii aadan hubin ma garanayo iska dhig haddii xataa aadan midda aad ka yaraa xishoonayso waan igu soo laabadha waan baadhi oo intaad gurigaa ku noqoto kutubihii soo baadho adoo masaladii si fiican isaga soo bisleeyey markaa waa sidaa iyo waa sidaa iyo waa sidaas laakiin intaad ka soo fadhiisto masalo walba waa kan waa keer waa ka haddaad tidhaahdo waxa weeyaan dee waa halaag weeye waxaad ogtihiin imaam maalik baa loo yimid maalin qolyaa u yimid marka waxay weydiiyeen ma aqaan 47 su-aalood bay weydiiyeen 40kii ma garanayo oo qayaxan buu iska yidhi ma garanayo markaasaa waxaa la yidhi oo waadna khasaarisay meel maan kaaga nimid meel maan ka soo safray oo nala yidhi nin sheekh oo caalim ah jiro oo ma garanayadoonuni maxay tahay marka wuxuu ku yidhi ani waxaa ii dhaantaa waxaanan aqoonin oonan hubin intaan odhan lahaa ilaahay ku been abuuran lahaa intaad dameerihiinan fuushaan inaad magaalada madiine kusoo wareegtaan oo tidhaahdaan ninka maalig la yidhahdo waa jaahil aan waxba garanaya ani saasaa ii dhaanta marka taana aad halaysaga jira waa khatare waqad gadaa wuxuu noqday ibnu cabbaasin cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu noqday bifadli cilmigiisa daraadi iyo wa fiqihi iyo garashadiisa iyo fahamka ilaahay uu siiyey islaamka wuxuu ku noqday mustashaaran la taliye lilkhilaafati araashida khilaafadii islaamka ee alla hanuuniyey ayuu wuxuu u noqday la taliye cala alragmi min xadaasati sinnihi xataa isagoo da'yaraantiisu ay jirto isagoo wiil aada u da'yara oo aan gaadhinba da'dii lala tashanayay ayuu wuxuu noqday la taliye ayuu u noqday alkhilaafa araashida waxaad halkaa la ishaaraya waad garanaysaan waa waqtigii cumar radi allahu tacaala canhu cumar ibn khataab wuxuu ahaa isagoo dabaqaya amarka alleh oo ah wa amruhum shura baynahum iyo washaawirhum fi lamri oo nabiga la yidhi isla markaana amarkaa loo jeedo qof kasta oo muslin ahoo mas-uuliyad muslimiinta u haya isagoo dabaqaya ayaa arrin kasta oo timaado asxaabta ayuu la tashan jiray wuxuu la tashan jiray kibaaru saxaaba min almuhaajiriina walansaar isla markaa wuxuu la tashan jiray koox dhalinyaro ah oo yaryara oo cabdullaahi ibnu cabbaas uu ka mid yahay yaan ka maqnaan jirin marna majliskiisa oo mas'alo kasta markay timaado wuxuu odhan jiray war mas'aladanaa naga hor timid oo orad soo xalli adiga yaa adaa ku filantane oo ilaahay cilmi iyo caqliga ku siiyey ilaa markii dambe rag asxaabta waaweyn ka mid yahay arrintii ka xanaaqeen waxaa ka mid ahaa sida la wariyey zubayr ibn cawaam radi allahu tacaala canhu oo la war wiilka yaree korayga ah eed goshoon ku wadata maxay tahay marka wuxuu yihi war wiilkan kistaan u wataaye waa ilaahay baa maskax siiyey balukaadi maalintii dambe ayuu u yeedhay markaas su-aal buu weydiiyey bal waxaad ii sheegtaan buu yihi nimankiinan zubayr iyo nimankiinan inankan haysto waxa laga wado ama micnaha ay ku fadhida idaa jaa nasru llahi waalfatxu wara'ayta annaasa yadkhuluuna fi diin illahi afwaajan suuraddaas maxay ishaaraysaa marka iyagu daahirkay qaateen waxay dhaheen dee waxaun alla uu farayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii ilaahay nasri uu keeno oo magaalada maka la furto oo dadkii aad aragto oo diinta ilaahay soo gelaya in aad ilaahay mahadiisa iyo tasbiixda badiso saasaa la farayaa waa layswada maqli waa layswada horfadhiya waan gartay buu yidhi bal cabdullaahi ibnu cabbaasowna adi maxay kula tahay marka wuxuu yidhi anigu arrintaa ka duwan baanu arkaayo suuraddu waxay ishaaraysaa nebiga geeridiisa oo diintii waa la kaamil yeelay adiguna waad socotaaye tasbiixda ilaahay badi marka cumar wuxuu yidhi aniga qudhaydu sidaasaan aaminsanahay waa sidaana marka sidaasi wuxuu ahaa
ولا لا تشنجري عمر ولا تشنجري فكان وحوها إذا عرض هدو كوري مادو لعمر بن الخطاب أمر أرن هدي كوري مادو أو واجهته هدي كوري مادو معضلة مشكلة عبقي دعا وحوه يرجري جلة الصحابة odayaasha asxaabta ayuu yeeri jiray asxaabta odayaasheeda wadaca macahum asxaabta odayaasheedana wuxuu la yeeri jiray oo loo yeedho odhan jiray cabdullaahi ibn cabbaas ayuu yeeri jiray wiilkaa yarkaas fa idaa xadara marka uu yimaado cabdullaahi ibn cabbaas rafaca wuxuu sare u qaadi jiray mansilatahu darajadiisa ayuu sare u qaadi jiray oo meesha uu fadhiyo ayuu soo fadhiisin jiray wa adnaa wuxuu u soo dhowayn jiray majlisahu meesha uu fadhiyo kaalay agtayda wa qaala lahu wuxuu ku odhan jiray laqad acdala calayna waxaana dhibay oon xallin kari weynay amrun arrin cabdullaahi ibn cabbaasow arrin baan xalkeedii weynay arrintaasoo anta adigu lahu aada leedahay arrin iyo weli amhaalihi iyo arrintaas wixii oo kale ah arrintaa iyo wixii iyada oo kale ahba waa arrimihii adiga aada xallin jirtee laguu ogaan jiray wey annagu gacantaan ka taagnay laakiin adaa ku filan waa kuwaadi annagu waxa yaryarka aan ku filannahay waxa waaweyn haddee waad ogtahay adaa lagugu ogyahay laqad acdala calayna waxaana dhibay oonu xallin kari weynay amrun arrintaasoo anta lahu adigu aada leedahay arrin adiga kuu sugnaatay iyo weli amhaalihi iyada oo kale ana arrin iyada iyo wixii la midaba kuwaagii ah kuwaad adigu xallin jirtay yaa naga hor timide bal soo raadi xalkeeda waqad cuutiba waxaa looga eed sheegtay oo lagu canaantay looga eed sheegtay iska dheh cumar idina ma canaanan karteen waqad cuutiba waxaa looga eed sheegtay oo looga cawday maratan mar fii taqdiimihi horumarintiisa lahu wiilka yaruun uu gasha ku wato ayaa arrintaa lagu canaantay oo looga eed sheegtay iyo wajaclihi wiilkan in lagu daro maca shuyuukhi odayaasha wahuwa maa zaala fatan isagoo oon weli wiil kuraya ah faqaala wuxuu yidhi innahu fata alkuhuul warka yari gadhmadoobayaasha intii gadhmadow 40 jirka iyo meelahaas shaabkoodii wey shalayna waan sheegnay ama waxaa laga wadaa baan nidhi waa mid yar oo xagga da'dana dhalinyaro ka ah laakiin xagga maskaxda iyo caqligana gadhmadoobe oo bislaaday lahu wuxuu leeyahay lisaanun sa'uul carab su-aal badan ayuu leeyahay oo cilmi buu rabaa wa qalbun caquul qalbi caqli badan oo wax qabto oo aweeleeyana wuu leeyahay marka halkaas waxaa ku dhammaanaya taariikhdiisii xagga cilmiga calaa ana ibna cabbaasin hase ahaatee ibna cabbaas xiina markii insarafa uu baydho ila alkhaasati dadka gaarka ah xiina markii insarafa uu baydhay dheh ila alkhaasati dadka gaarka ah liyucallimahum si uu wax u baro wayufaqihahum si uu wax u fahamsiiyo lam yansa ma iloobin xaqa alcaammati calayhi dadweynaha xaqay ku lahaayeenna ma iloobin ilan xaqa khaasadu waa dadkan waxbaraya ee ardada ee cilmiga qaaday ood ogtihiin taabiciintu dad ay cilmi ka bartaan waxaa ugu weynaa cabdullaahi ibn cabbaas waad ogtihiin kulli kibaaru taabiciin waxay ahayd min talaamiidi ibn cabbaas waad ogtihiin haddayna kuwaasi jiri lahayna cilmigu wulwami lahaaba oo weli waxay ku soo aatay fatro qalalaasa siyaasadeed uu jiro dadkii muslimiinta lagu mashquulay arrimihii siyaasadda iyo dagaaladii iyo khilaafaadka laakiin ninka ilaaliyey cilmiga ee cilmiga waday isagu ahaa isagiyo qaar badan oo ka mid ah asxaabta
laakiin dadweynihiina xaqoodii buu oofiyo inuu wacdiyo ayna dadweynuhu iyagu wacdi iyo wacyigelin bay leeyihin waad ogtiin dadweynaha wakti ay wax ku bartaan male waa mashquulin hooyada meesha ayaanyada ku gali miyaa wakti u haysa ay wax ku barato laakiin waxay xaq u leeyihiin maalmaha qaarkood in la wacdiyo oo la gaadhsiiyo wacdi iyo xaq u leeyihiin marka nasiib dara hadda inaga masaajidiina lama wada iman karo marka meeshii wacdiga dadka lagu gaadhsiin lahaa baa yaaba balaa waxaa ugu roonaan lahayd in dee raadiyaasha iyo in dadka si fiican looga wacdiyo marka dadkana wuu wacdin jiray weeye lam yansa ma halmaamin xaqa alcaamati calayhi dadka caamadii xaqay ku lahaayeenna ma halmaamin fakaana wuxuu ahaa yacqidu lahum kii u sameeya majaalis alwacdi waatadkiiri fadhiyada wax lagu wacdiyo waxna lagu waaniyo ayuu dadka u samayn jiray fa min mawaacidihi waanayaashiisa iyo wacdiyadiisa waxaa ka mid ahaa qowluhu hadalkiisii uu yidhi mukhaatiban isaga oo la hadlaya asxaaba adunuubi dadka dembiyada samaynaya uu ku yidhi yaa saaxiba adembi qofka dembiga samaynayo laa ta'man aamin ha ka noqonin dembiga waad ogtihiin tiraday ka badan yihiin tirada ayuu ka badan yahay dembiyadu kuwa yaryar iyo kuwa waaweyn dembiyadu saddex baa u qaybsamaan waad ogtihiin kabaa'ir waxyaala xaaraama horta waxay u qaybsamaan muxaramaat iyo makruuhaat bay u qaybsamaan dembiyadu marka wixii dembi ah sharcan waxay u qaybsamayaan muxaram wax la xaaraantinimeeyey iyo wax makruuh ah marka muxaramkii labay u qaybsamaan iyaguna dembi oo weyn oo kabiira ah iyo sagiira bay u qaybsamaan marka kabaa'irka waa aad bay u tira badan yihiin kabaa'irku qaar culimada waxay gaadhsiiyaan ilaa 200 ilaa 300 iyo ziyaado sida kitaabka maaragtay ibn xajar alhaytami kitaabkiisa alzawaajir min ikhtilaaf alkabaa'ir uu leeyahay ilaa 200 buu gaadhsiinaya wax ka badan 300 laakiin qaar badan oo laysu yaraa khilaafsan yahay ama saqaa'irba ma kabaa'ir baa jirta alxaafid adahabi oo kale isaga kitaabkiisa alkabaa'ir isaga waa 270 ilaa 75 kabiiro wey waxaa kaloo jira marka in inta aada uga fara badan oo ah saqaa'ir dambiye yar yara oo laakiin xaaraam soo gelay daa'irat alxaraam iyo makruuhaadkii waxa oo dhan baa dembiye la yidhaha kulligoo dhan intaas oo dhan waxay wada hoosgelayaan taxta bandi oo ismi adamb ay soo gelayaan maxaa jira wax lagaa reebay marka reebitaanku ha kala weynaado طبعا intaa u dembiga waxaa ugu weyn ashirku billah yaa ugu horeeya oo dembiga ugu weyna waxaa ku xiga qatlu nafs alati xarama allahu naf ilaahay xaaraantinimeeye oo la gooyo marka waxaad ka garanaysaan marka sida loogu tumanayo maanta ilan dadka bilaash la isaga dili oo wakaa waad ujeedaan meeldhow ismadfacbaa la isa ganay wuxuu isaga dhacay kuwo sibyaana oo wax dembiga ay geysteen aan la arkin oo qur-aan akrisanaya dugsi qur-aan iyo madfac la isaga riday marka wax dembiga inoo hadhay oo la samaynaya ima jira innaga marka kuwaasuu la hadli dembiilaha kuwaasuu la hadli dadka qaarkood waxaad moodaa dembiga waxaa la moodaa oo keliyata zinada iyo laakiin zinaduna min akbar alkabaa'ir bay ku jirtaa 7 almuubiqaat laakiin waxaa ka sii horeeya qatlu nafs alati xarama allah oo anaga inaga noqotayba waxa ugu sahlanba wax dhib oo ay leedahay aan la arkin wax dhib oo ay leedahay aan la arkin xadiis nabigeena laga wariyay oo sanadkiisa wax laga sheego wuxuu leeyahay man acaana calaa qatli muslimin walow bishatri kalima jaa yawma alqiyaamati maktubun bayna caynayhi aayatun min raxmat illah ninkii ka qayb qaata qof muslima dilkii
ولو كلمة نسكت بعض أدوك ما لندلين لكن فأنا كأذا بشيء أولاد بيتقال كأورسي أدوك كأذا بشيء فاللي كبير بعد كأحي غير ولا العيات لي أولاد ضد مسلمين هاي كل ليليان يدوك كأذا بشيء أو كأورسي دب كأورسي maalinta qiyaamo waxaad imanaysaa isagoo indhaha dhexdooda ay kala qoran tahay kale wuxuu ka quustay naxariista ilaahay marka dadka lala hadlay waa kuwaas wey dambiyada hadda weyn ee aynu ku jirno waa kuwaas wey waa dadka colaada urinaya colaada wuxuu yihi yaa saaxiba dambi ninka dambiga laho kuwa intay meel fadhiistaan habeenkii sheekaynaya colaada ka sheekaynaya يا صاحب الذنب لا تأمن مرنا آمنا كنقن بالي عاقبة ذنبك عرفتي سوى يالها كيمن دون آمنا كنقن ويكسو قاري عقوبة دبك الهوري ليسي ألا كبقبن دون مركة دمدوي دبك أشي ليسي مركة دمدعوه وكسو قاري وكوكسو غلاقي دبكوه غلاقا واعلم أبوه أن ما يتبع الذنب dambiga waxa ka dambeeya dambigii aad gashay miraha ka dhashay ee qalaali acdam inuu ka weynan badan yahay min dambi nafsihi dambigii aad samaynaysa naftiisa waxa ka ratibmi doona ayaa ka weyn dad baa isku dartay dad bay sii laayeen wala sii laayo waa garanaysa waa ka sii dhalanay fa inna cadama istihyaa'ika xishood la'aantaada mimman calaa yamiinik midigtaada cidda kaa jirta aadan ka xishoonin wa calaa shimaalika bidixdaada cidda kaa jirtana aadan ka xishoonin waa malaa'igtii kula jirtay wey waa munkar iyo nakiir kii waxaaga qoraya aad ka xishoon weyde wa anta taqtarifu damba adiga oo dembigii samaynaya laa yaqilu can dembiga nafahaantiisa kama yara xishood la-aantaas aad ka xishoon weyday malaa'igtii ilaahay ee sharafta lahayd ee kula jirtay dembiga naftiisa kama yaree ogow wa ina daxkaka qosolka aad qoslayso cinda dembi markaad dambaabayso markaad zinaysanaysa iyo qosli hadday ay tahay ama markaad wax xamanaysaan eed wax qoslaysaan ama marka aad dadka ku diraysaan ee dabka shidaysaan eed qoslaysaan wa anta laa tadri adiguna aadan ogeyn ما الله صانع بك وحو الله كوغو سمين دونو غفلة كجرت مرجع ذنبك سمينيسو يا أعظم من الذنب ذنبك نفسي تكوي وإن فرحيتو إذا ظفرت به ذنبك مركع كعنت كدتو حولاد رسين عبد العظام مركع حواليه طاود رسين عبد العظام طاود كي بتوقع شيء ما صار فرحي وتلمانتم فيل قول بانتمين انت وامارت وينوك شيء فرح اكو فرحتنت اي ذنبي نفسي وان فرحك فرح هذا بالذنب ذنبك اكو فرحتنت اي دبا طوليتين رجسي وطوليتين اما وطول عدين قال فرح اكو فرحتنت يقوشا قول كشير تاعد قاعدين اذا ظفرت به اداد قاعدو يا أعظم من الذنب ذنبك نفانتي تتاسال كوين سببت ما قرنيسان هذا هو وين تاني ذنبك أدو كل حمان وايو وحي كاني كرتا قال لي ما كاني كرتا بعد روح على ذنب السماء بينه كل حياي على الأقل بارتين عن إنجر مسلم إسلام من إلى تسي جرته بعد روح على كمان ذنبك دلك يدعى ومنكر سماعه وذنب ما منكر كونه مرنا طلبت على معنا واسمع زي بلع كوكو قادو لكن وين هذا الرعال كاين لكن هذا كفر احسن تعي منكر منك كفر حواسد النبي عليه الصلاه والسلام حديث صحيح مسلم ورنيه وليس وراء ذلك حبة خردل من ايمان منكم مرة كفر حدمي وعكد معنا ايمان ملك وحو إشارة ابن عباس ومدها وإن فرحك بالذنب فرحك فرحتنت أي ذنبك إذا ذكرت به ذنبك أبيع أبقعنت كل كتاب ودرجة رسينا الطول ليسان أضب علينا الطول ليسان
ama xoolihii arisayna soo dhacdeen ama zina hadaad u dhaqaaqday oo soo heshay wey zinadii aad soo zinaysatay baa acdamu weyn min adambi dembiga naftiisa waxaa ka weyn faraxa aad ku faraxsan tahay dembigii inaad samaysay sababta uu uga weyn yahayna waa midda aan kuu sheegayo waxa munkarka ee dembiga ah qofku haddii uusan inkaarin uu raalli ka yahay uu ku faraxsan yahay iimaankii baa ka dhammaanay wa ina xuslaka tiiraanyadaada ama walbahaarkaaga ama naxdinta aad ka naxayso cala dambi dembiga aad ka naxayso idaa faataka dembigaasi haddii uu ku dhaafo ood weydo yaa acdama weyn min adambi dembigii taas micnaheedu maxay tahay waxaad goosatay inaad soo dambaabto go-aan bay adiga ka ahayd marka haddii intaad doontay aad go-aan gaadhay inaad dambaabto aad uga laabato alla daraadi xasana lagu qoriso nabiguma odhan calayhi salaatu wasalaam man hama bisayi'atin falam yacmalha kutibat lahu xasanatun kaamila saasuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka oo 40 ku yaallo ood wada xafisantihiin insha allah laakiin waa goorma waa markaad ilaahay dartii isaga daysay laakiin haddaad soo weydo adiga waxaad damacday inaad soo dilaysato markaasay lagu soo jiiday adoo raba wax dembi weyn baa lagu qorayaa ma ilaahay dartii umaadan daynina waad soo weyday uun adun baa ku soo fashilmay ma aragtay inaad dad soo layso markaasaa adin lagu soo dilay ama aad weyday oo meesha ka carareen dadkii ama xoolaha aragtay soo dhacdaan markaasaa xoolihii laga bajiyay meesha marka haddaad taa ka xumaato dembigii aad weyday haddaad ka xumaato dembi baa lagu sii qori weye wa ina xuznaka walbahaarkaaga cala dambi dembigii aad u walbahaaraysa idaa faataka haddii uu kaa tago dembigii oo soo qaban weydo yaa acdamu weyn min adambi dembigii haddaad samayn lahayd walbahaarkaas aad uga walbahaaraysa inaad weyday baa kaaga sii daran wa ina khawfaka cabsidaada min alriixi dabaysha aad ka cabsanayso idaa xarakat dabayshii hadday dhaqaajiso sitraka gabaadkaadii had ka soo qaadaa waad zinaysanayseen marka meel baad ku gabanayseen meeshii baa dabayl baa dhaqaajisay markaasa waxaad leedahay alla laydin qabay naxdinta aad ka naxayso wey wa ina khawfaka iyo wixii kastoo kaa nixiyo wey dembi kasta zina khaasku maaha wa ina khawfaka cabsidaada min alriixi dabaysha aad ka cabsanayso idaa xarakat dabayshii hadday dhaqaajiso sitraka waxaad ku gabanaysay gabaadkaadii wa anta tartakibu damba adiga oo dembiga samaynaya maca kawnika adigoo ah laa yadaribu fu'aaduka wadnahaaga ama qalbigaaguna uusan gilgilanaynin min nadari illaahi ilayka alla eegmada uu ku eegayo ilaan ilaahay uu ku arkaaye bal dembi baad samayn qalbigaaguna kama gilgilanayo inuu ilaahay ku eegayo o ilaahay ku arko ee waxaad ka cabsanaysaa dhaqdhaqaaqaad dareentay oo dad baa kuu imanaya oo ku ogaanaya midaas yaa acdamu weyn min adambi nafsihi dembiga naftiisa kaasaa kasii weyn inaadan ilaahay ka xishoonaynin oo aadan isogayn oo aadan dareensanayn inaad dembi ku jirto yaa saaxiba dambi ninka dembiga lahow atadri ma og tahay maa kaana wuxuu ahaa dambu ayuuba calayhi salaam nebi ayuub dembigiisa wuxuu ahaa ma garanaysaa xiina markii ibtalaahu allahu alla uu imtixaanay caza wajalla bijasadihi jidhkiisa iyo wa maalihi iyo hantidiisaba inamaa kaana dambuhu dembigiisu wuxuu ahaa un annahu istacaana bihi miskiinun mid miskiina ayaa kaalmo weydiistay liyadfaca canhu dulma si uu dulmi iyo gardarro uga celiyo falam yucinhu kuma gacan saynin ee dembi kale u galay ma jirin markaasaa sidaa loo ciqaabay marka iska ilaali marka ibnu cabbaas meel walba sidaas ugu wanaagsanaa markii wacdi la yidhaahay iyo waanana sidaa qotada dheer ayuu dadka u waanin jiray walam yakun ma ahayn ibnu cabbaasin cabdullaahi ibnu cabbaas ma ahayn min aladiina kuwii ka mid ma ahayn yaquuluuna odhanaya maa laa yafcaluuna waxaynan iyagu samaynayn kuwa yidhaahaa ee dadka wacdiya iyaguna aan waxba maaragtay wacdiyo iyagu dembigii samaynaya kaaga hormaraya ma ahayn muusan ahayn waa kuwa ugu daran wey
علماء السوء اللي قوة علماء السوء وقوة شقضوا أي تهي وعدها شقا يوتهي وعدي معها وقوة دولة لها مدى دولة كشاة جمانة الدولة عالم الإسلامي كجرة يا وحي المساجد ودي لان dadkii ducaada ahaa ay diintu ka dhabta ahayd ee dadka si ilaahay dadka u wacdinayay ee jeclaan inay wax hagaagaan markaas waxa la soo kaxeeyay dawladda ilaa kuwaas ay diideen niman bay soo qoratay shaqaalaha way soo shaqaysanayaan meelaha sabti iyo abu wala markaas Allah war waqti dawaamka la gaaray marka dadka tukinayay oo marar badan iyagoo waysa qaban dadka tukinayay معلومة الإنسان دين في وعدي جهدي جاري منا واحد اللي جمعة لجاري ولنا جاهن دين دولة الله يكتبها خمسة فكاسيا واحد اللي هاي وما عليك فصح عيني وفصح عيني أرض كلا في صلاة دي فصح على سنين فما عليك فصح لما قابلني ثم أنت وفصح وقوة فيه لم يكن معي ابن عباس من الذين كوي كمد معهم يقولون ولنيين ما لا يفعلون وحي من ثمانين وينهون الناس ذكنا كنا يليين أما كرهين ولا ينتهون إيقنا عن كره الثمانين وإنما وحك لما كان وحوها صوام النهار مع المهي مستنبلا قوام الليل هذا الندنا مستوجير بلن أتاجير بلن أتاجير بلن أيها أخبر عنه وكذا عبد الله بن مليكة وأرجل التكمل وكذا قال وحي صحبت ابن عباس عبد الله بن عباس له عن الراحي رضي الله تعالى عنهما من مكة مجالة مكة إلى المدينة مجالة المدينة عن الراحي فكنا وعن وعين إذا نزلنا هديئا بالنور منزلا ميلا لجوه يعني السفر فيه كان ميل كفر النوم قاموا كإجري شطر الليل هذا يمكن في الدنباء كإجري والناس نيام تذكر الليل الردان من شدة التعب دال في لماذا لما تطلع دال في جرادي متى يذكر لك عتام يسوي كإجري ولقد رأيت وانا قيدات ليلة هذين يقرأ ويستوى عبرنا وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تعيد آية يستوى عبرنا وجاءت وحاكمت سكرة الموت جيريد السكرات كذيبة كنت بالحق حق عام بيوكنت وعد والغيث الأول ذلك مدى سكرات كاتو ما وحي ويكنت على منه حديثة تعيد كيك عرره تغفر مدى الآن جرتين لمشتري يتلقى بنجرتين آيات داتو أغرينيه فظل وحوها يكررها إنه فعل عليها آياتي وينتجو وهو على رويه حتى طلع عليه الفجر إلى أواب القبر وآيات أداتي وآيات وحسبنا وحن غفلا بعد ذلك متى كذب كله لما انت وأن نعلم إلى نبانا أن عبد الله بن عباس كان ينوى من أجمل الناس جمالا بك إلى أيوة أبو ريكوه وروح الضلالينوها وأصبحهم وجها فكروا وجه النور يجي عبائنوها فما زال يبكي كموت ذولين أويو في جوف الليل هبين كبرتن في سيئين أويو كمجدول من خشية الله ألا عبتلي قول له أويو وحسبنا وحين وصلا بعد ذلك كاس كذب وينوشى عبد الله بن مليكة وينوشى عليه والله كعرف عبد الله بن عباس في قيام الليل كيسة يتاجد كيسة يؤين كيسة وينوشى عليه وحين وصلا أن نعلم إلى نبانا أن عبد الله بن عباس كان من أجمل الناس جمالا فك إلهي قوة وروح لفضلينها وأصبحهم وجها بس يقول وجه عدلها فما زال
لبدي ولم يبكي منه في جوف الليل هذين تبكى في سينه من خشية الله ألا حتى له حتى أحدث إلاه كالسمايو الدمع الهتون المري سرر بالليل الدمع المري أما إلنتي الهتون إذا رسلين سرر بالليل على خديه الأسيلين لبديس قاد أساس إليه قادين المتوضع عنه لبديس قاد محاك إلى هذا الأسيلين الدلالي بل يمارس قروح درادة يحدان للدلالي إله كذا سمعي حتى حدث إله كذا سمعي الدمع الهتون المري سرر بالليل على خديه الأسيلين لبديس قاد